watay dadka barayay magaalaynta dii ayuunbay la socdeen kambaniyadii la socday dee iyaga maalgelinayay arday lcga wax ka furanayay dadkeen dee may fahmayn markaa hore waxyaabahan tadawarka ee adduunka dee ma garanaysa yaa marka guryaha ay lahaayeen adugu dad bay la macaamileen oo meelo dee iminka deerahoo yaroo kale oo ayaa la yidhaahdaa waa meelahay wax ku caabudi jireen waxa ilaaliya dad baa dee meelo xidhan markii ay 45 la dhaafay Wolstopkii 47 48 yaa Yahuudi dalka joogtay Ingiriiskii waa ka baxaysan dalkan wala idin ururinaya cadan baa la idin geynaya ma jirto in Yahuudi halka joogaya amarkaas uu bixiyay dabada daarahoodii ay dhisteen dalka ku lahaayeen way xaraasheen min ilaahdo حاجي جامع محمد 200 وسجن ميل waxay waxoogaa ka siiyay waxay waxoogaa ayaa ka iibsaday waqtiga aan joogay anigu nimankii Yahuud ahaa midad baa ku sii haray bahal qaansa ah waxa ay isaa oran jireen oo waxay feeri jireen cudbiga waqtiga anigu aan imin cudbiga ay feeri jireen oo midad baa ku sii haray waqti way tageen midad baa ku sii harsanaa magaalada Berbera haddii aynu gees kale ka eegno waa halkii uu ka bilaabmay dhaqdhaqaaqa ganacsiga Somaliland iyo qaybo badan oo kamida bariga Afrikaba waxaana markii hore furo u ahaa ganacsi yaryar oo dooyuhu ay hormeed u ahaayeen isla markaasina ay lahaayeen ganacsato ajaanib ahi meel laga tago marka dee jiilaalkii laga xoolahan iyo waxaan doonyahan dub loogu gurto Suuriya ka iman jireen marka waxay ahayd hindi Pakistani Arab magaalada wax Soomaali oo caankaasi waxba kuma lahayn Arab iyo Hindi baa lahaa magaalada waxa dhiskeeda Arab iyo Hindi iyo Baniyaalo waxa saalaha cid kale waxba kuma lahayn Soomaalidu waxba kuma lahayn muddo kadib ayaa waxa bilaabmay ganacsi yar oo kooban oo ay hormeed ka ahaayeen dad Soomaali ahi ma jirin magaalada bariga aanu nimi waxa jiray laba taajir nin wuxuu ahaa Xaaji Ibraahim Cigaal inna wuxuu ahaa Xashiis afar iyo kontonkii waxa ku soo biiray Faarax Harbi iyo rag leh oo iyaguna markaas soo galay waxa jira laba nin oo iyaguna shuraako dukaan wanaagsan oo weyn ku haystay Xaaji Gawdal Maxamed baa la oran jiray midna Yeesu Imaan baa la oran jiray shuraako ay ahaayeen dukaan weyn bay haystay nimankaas tijaartu saas isu daba socotay jaaradoodu waxay ahayd waxay cadan ka keenaan un bay ahayd hargo iyo maryaha u badnaa wax intay waxay keenaan maryaha iyo haragana waa dhoofin jireen haragana way qaadi jireen marya iyo waxaana waa keeni jireen iyo timir iyo daado wixii raashinana iyagaaba keeni jireen markii la gaaray dhowr iyo konton afar iyo konton la gaaray abaaraha waxa dhacday in bacmisharkii cadan ka furmay oo arigii la geeyay dabeedna laga soo qaatay alaabo bacmisharkii Soomaalida oo ay markii hore gacanta ku hayeen dukaamada oo dhan niman Carbeed haysteen ganacsiga marka halkaas ka bilowday Soomaalidu ganacsigeedii dukaamay furteen dhar la iibiyeen haddii la yiraahdo waxba ganacsiga cadan la yeesheen ka halkaas uu ka xoogay ganacsiga Soomaalida markii hore ma jirin ganacsi nin Soomaaliyeed timir iyo caano bay iibin jireen inaantay waqtigii dambe cadan ayar adkaatay xisaabteedii Sacuudiga nin fura aw isaga ugu horeeyay nin fura Sacuudiga oo arigeeya ninkii ugu horeeyay weeyaan Soofi Xasan
magaalada berbera oo ah magaalo taariikheed qadiimi ah waxay hoy u ahayd qurumo iyo ummado kala duwan kuwaasi oo ilaa maanta ay tafsiirtoodu ku sii nooshahay magaalada berbera marka laga hadlayo taariikhda magaalada berbera waxa qayb muhiim ka ah oo aan la dhaafi karin meesha loo yaqaano xabaalaha saadada xabaalaha saadadu waa meel dadka loogu aaso qaab ka duwan habka ay dadka dhulka ku nool ugu aastaan xuseen abu cariish waxa uu ka soo jeedaa isirahaan dadkii hindida ahaa ee berbera yimi dhowr boqol oo sano ka hor السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحالي على حسين نور أبو علي شو دقن بربرة مقالة دقن أووك أوو وحن نمي هالكم كوني سقال بقول يو سجي طبنكي أيان هالكم شو دقن مقالة بربرة وأنا وحبت شيء عن رضياشي أووكي أيان ميشو شو دقي أبيب هالكم كذا شيء مركز سجي بنوت شوقنا أنا قلنا واقع إمكانا جاسا تاجنا هاي كنت تشربنا هاي هالكم وحن شوقنا حوالها سالة meesha xabaalaha saadadkii saadada ay deganaayn magaalada berbera ayaa xabaalahan helay marka xabaalahan way ka duwan yihiin xabaalaha kale waxa weeye waa laba qarni saddex qarni weeye ayaa meesha xabaalahan kuwan arkaysan waa qoladii saadada weeye ayaa ku aasan meesha imkana waxa la yiri saddex magaalo ayaa lagu arkay xabaalahan noocan oo kala ah waxa weeye saddexda magaalo waxa weeye berberada iyo Masar iyo Suuriya ayaa lagu arkay xabaalahan oo sidan shilinka oo kale oo go'an ama gool oo go'an marka hoos baa u laacaysa hoos waxay noqonaysaa maqsin weyn bay noqonaysaa marka mayskiiba halka la dhigaya ama hilbiiba halka la dhigaya marka meeshan waa meel aad iyo aad mucjisay leedahay way waxaad ka garanaysaa badii baa dhow أنا بيه قارن دين عشيشنا دين عم قالوا هذا تكتنا هو قاعد يقول قارن أجد بيه قارس لكن هكذا بيه كما قارس أبيه باكو عسن وأوجي باكو عسن وعطياشي باكو عسن لون كيجي هبرية وحي أنا باكو عسن